kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ciidamadii ugu badnaa uu duldhigay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Cali Khayre oo meel uu ka baxala Maxamed Xuseen Roble iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku jira xaalad khatar ah xamar oo xabadi ay ka taagan tahay iyo magaalada Muqdisho oo wadooyinka ugu muhiimsan ay maanta ay xiran yihiin banaanbixii oo baaqday qodobadaas iyo qodobo kale xiiso leh ayaan idinku haynaa barnaamijka xulashada wararka oo inta badan aan ku eegno wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya halka ka daawanaysan waa Waama TV fadlan daawada hadda ku cusub tahay baraha ku leenahay bulshada ku soo biir channelka subscribe noo saar Facebook noo follow garee muuqaalka la garee oo share garee magaalada Muqdisho waxaa ka socda diyaar garow xoogan oo ay wadaan madasha mustaqbalka Soomaaliya kuwaas oo qorsheynaya barnaamij ballaaran oo lagu wado in uu saameyn uu ku yeesho xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo laga cabsi qabo in xiisada amni iyo isku dhac siyaasadeed wararka laga helaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in diyaar garowgii ugu dambeeyay uu ka socdo xarumaha ee mucaaradku ay ka sameysteen banaanka caasimadda halkaasi oo lagu abaabulayo kulamo iyo qorshayaal istaraatiiji oo la xiriira sida banaanbaxa uu maalinta berritaha uga dhici doono magaalada Muqdisho Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa la sheegayaa inuu u guuray xarun cusub oo ku taala deegaanka Mirnaayo taasi oo qayb ka ah isku dubaridka siyaasadda ee banaanbaxa ay abaabulayaan mucaaradka iyadoo hogaamiyaasha kale ee mucaaradkuna ay wadaan kulamo xasaasiya mucaaradku waxa ay leeyihiin shirar muhiim ah oo diiradda ku saarayaan sidii banaanbaxaasi uu hirgal u noqon lahaa oo uusan uga fashilmi lahayn sidii banaanbixii hore qaabka uu dhici doono banaanbaxa ayay hadda ka shirayaan waxay kaloo ka shirayaan amniga iyo weliba wadooyinka muhiimka ah ee dowladdu ay xirtay iyo sidii ay uga gudbi lahaayeen cadaadiska dhinaca amniga ah ee dowladdu ay saarayso jawaabaha laga bixi doono haddii hor istaag lagu sameeyo iyo weliba waxa ay ka yeelayaan qodobadaas iyo kuwo kaloo xiise leh ayay ka shirayaan ilo ku dhow dhinacyada mucaaradka ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in ay ka laabtaan banaanbaxa haddii ay la kulmaan xanibaado dhinaca amniga ah ama cadaadis dhinaca amniga ah iyaga oo ku doodaya in xaaladda siyaasadeed dalka ay u baahan tahay sixitaan dastuuri ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankeeda waxa ay hore u sheegtay in hay'adaha dastuuriga ah ay sharciyad ay ku shaqeynayaan ilaa doorashooyin cusubna laga gaarayana ay sii shaqeyn doonaan taasi oo sii kordhinaysa ismariwaaga siyaasadeed saacadaha iyo maalmaha soo socda ayaa la filayaa inay soo baxaan faahfaahino dheeraad oo ku saabsan halka uu xaalku uu ku dambeyn doono iyadoo indhaha ay si weyn loogu wada hayo magaalada Muqdisho iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee sii xoogeysanaya ee ka jira magaalada Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliyana waxa ay ciidamada badan iyo gaadiidka dagaalka ay soo dhoobtay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo weliba xaafadaha ay degan yihiin xubnaha mucaaradka ah ee iyaguna dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ka wada caasimadda meelaha ciidamada la geeyay waxaa ka mid ah degmada Cabdicasiis oo uu shalay u guuray madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo degay gurigii Cali Mahdi ee ku yaalay agagaarka xeebta Liido halkaasi oo sidoo kale lagu arkayay ciidamo ilaalo u ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha hadda muddaxileedkiisu dhamaaday oo isagana ciidamadii ugu badnaa duldhigay sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka mudane Xasan Cali Khayre ayaa isaguna waxa uu degay degmada Howlwadaag halkaasi oo isna uu ka wada abaabul xoogan sida ay muujinayaan muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ee bulshada ay ku wada xidhiidha ee dhinaca internetka hase ahaatee Xasan Cali Khayre ayaa waxaa la soo sheegayaa inuu cadaadis xoogan uu kala kulmayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho iyadoo ciidamadii ugu badnaa la duldhigay Xasan Cali Khayre ayaa loo diiday inuu ka baxo guriga uu hadda ku sugan yahay dowladda ayaa qorsheynaysa inay sidii hore u fashishay banaanbixii hore ay maaragtay u fashil ku soo dhamaado dowladda oo doonaysa inay ka hortagto dibadbaxa mucaaradka ee berri loo ballansan yahay ee ay ku dhawaaqeen madasha mustaqbalka ayaa ku adkeysanaysa inay qabato mudaharaadka si ay u muujiyaan diidmadooda ku aadan muddo kororsiga halka sana ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sameystay iyo barakicinta dadka shacabka ah dhaqdhaqaaqyadan dhinaca ciidanka ayaa durbaba waxay abuureen walaac xoogan iyadoo oo laga digayo in labada dhinac ay isku farasaaraan magaalada isla markaana xaaladdu ay faraha ka baxdo hore mucaaradka ayaa sidan oo kale waxa ay u qaban qaabiyeen mudaharaadyo balse waa ay fashilmeen kadib markii ay xeelad adeegsatay fila Soomaaliya odayaasha ku hayta Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa gurigiisa waxaa la geeyay xoolo loogu talagalay ciidamada isaga ilaalinaya iyo weliba abaabulka ciidan ee uu ka wado magaalada Muqdisho maadaama mucaaradku ay doonayaan 4 bishan in ay qabtaan barnaamijii ugu ballaarnaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho kaasi oo looga soo horjeedo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday odayaasha oo tagay guriga uu Sheekh Shariif Sheekh Axmed ka degay Mirnaayo ayaa ku wareejiyay xoolo nool oo ugu talagaleen ilaalada madaxweynihii hore sidoo kale odayaasha ku haybta ah ayaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa ay la yeesheen kulan gaar ah oo looga hadlayo marxaladan
kala guurka ah ee hadda dalka u galay. Madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarka ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa goor sii horeysay waxa uu degay gurigii madaxweynihii hore ee Cali Mahdi oo ku yaala xeebta Liido, halkaasi oo sidoo kale uu xisbigiisa uu ka furan doono xarun cusub si uu u ballaariyo howlgalkiisa dhinaca waqooyiga magaalada Muqdisho. Sawirro laga soo qaaday dhismahan cusub ee uu degay xisbigiisa ayaa waxa ay muujinayaan in durbaba lagu xardhay boorarka xisbiga Himilo Qaran, waxaana sidoo kale la filayaa in la qabto munaasabad daahfur ah. Wararka ayaa intaasi ku daraya in xubnaha kale ee mucaaradka iyaguna halkaasi ay ku qaban doonaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho ay ku yeelan doonaan fadhiisimo sida Saybiano iyo meelo kale oo ka mid ah bartamaha caasimadda, iyadoo ujeedku yahay diyaarinta iyo isku dubaridka dibadbaxa ay mucaaradku iclaamiyeen 4 bisha Juun, kaasi oo lagu diidan yahay muddo kororsiga Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba kooxdiisa iyo barakicinta qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho. Arrintan ayaa u muuqata mid ay mucaaradku ay ku aasaasayaan badbaado qaran labo, taasi oo lagu wajahay madaxweynihii ka horeeyay madaxweynaha hadda talada fadhiya ee muddo xileedkiisu dhammaaday. Daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan aad sida tooska uga daawanayseen Wama TV. Fadlan daawada haddaa ku cusub tahay barahan ku leenahay bulshada kusoo biir channelka, subscribe noo saar, muuqaalka like, share garee.